munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee ka hortagga gudniinka gabdhaha oo ku beegan 6 Febraayo ee sanad kasta ayaa lagu qabtay dhawaan magaalada Utrecht oo ku taala bartamaha waddanka Holland. xafladan ayaa waxaa soo agaasimay ururka Faros oo dowladda Netherland u qaabilsan arrimaha caafimaadka qaxootiga, iyadoo ay ka soo qayb galeen ururo kale oo caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqda haweenka iyo ka hortagga gudniinka gabdhaha, iyo sidoo kale ururo ay leeyihiin Soomaalida ku dhaqan waddankan Holland oo ay ka mid ahaayeen ururka lagu magacaabo wadaniga iyo urur kale ee isna la yiraahdo IFSAN oo ka shaqeeya arrimaha haweenka iyo bulshada, iyo marti sharaf kale oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi kale oo lagu casuumay xafladan. maalinta caalamiga ah ee ka hortagga gudniinka haweenka ayaa waxaa loo aqoonsaday 6 Febraayo kadib kulan caalami ah oo lagu qabtay sanadkii 2003 waddanka Ethiopia oo ay ka soo qayb galeen ururo caalami ah iyo dawlado ka badan 24 dawladood. ugu horeyntii ayaa xafladan waxaa furay maayarka magaalada Utrecht Aliid Welfsen oo ah magaalada ay ka dhacaysay xafladda. waxaa kale oo iyadana ka hadashay Monica van Berkum oo ah madaxa hay'adda Faros oo ah hay'adda soo qaban qaabisay xafladda, iyo sidoo kale xoghayaha guud ee wasaaradda caafimaadka waddanka Holland Dr. Jet Bussemaker, iyaga oo dhammaantood ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in laga shaqeeyo ka hortagga gudniinka gabdhaha oo gawi ahaanba ka mamnuuc ah waddankan Holland, oo ciddii samaysa falkaasna ay mutaysanayso ciqaab xarig ah. markii ay soo gabagabooday xafladan ayaa TV-ga caalamiga ah ee Universal waxa uu u sameeyay dood looga hadlayay gudniinka gabdhaha xubnihii Soomaalida ee halkaas ka soo qayb galay, waxaana ay dadkii halkaas ka hadlay isku afgarteen in gudniinka gabdhaha uu yahay gebi ahaanba wax aan asal ahayn, diintana aysan banaynin, loona baahan yahay in Soomaalida dhaqankaas aadka u foosha xun laga shaqeeyo sidii loogu baraarujin lahay in ummadda Soomaalida uu ka cirib tirmo. iyadoo ururadii Soomaalida ee doodaas ka qayb galay ay sheegeen in waddanka Holland iyo gudaha Soomaaliya ba ay ka wadaan barnaamijyo baraarujin ah oo ay ugu digayaan Soomaalida inaysan gudin gabdhaha, isla markaasna la soo afjaro oo la daayo gudniinka gabdhaha nuucu raba ha ahaado kan fircooniga loo yaqaano iyo kan loo yaqaano sunnada intaba. Marwo Sahra Cabdi Xirsi oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka magaciisa la yiraahdo wadaniga oo ku hadlaysay magaca Soomaalida xafladaas ka soo qayb gashay ayaa Universal TV ugu warbixisay sida ay uga qayb galeen xafladda. magacayga waxaa la Sahra Cabdi Xirsi. maanta waxay ahayd maalin oo international ah oo loogu talagalay maalinta laga soo warbaxay gudniinka fircooniga ama nooc kasta oo gudniinka leeyahay. halkan magaaladan la yiraahdo Utrecht ee waddanka Holland waxaa lagu qabtay maalintaas qiimaha leh. waxaa lagu casuumay dad badan oo Soomaali ah iyo dad badan oo ka mid ah wadamada Afrikaan ah, wadamada meelaha gudniinka ka imaado kale. anigana waxaan ku hadlayaa magaca Soomaalida degan waddankan Holland. wallahi wax badan ayaa nooga suura gashay sababtoo ah waxaan sameynay wacyigelin badan ilaa inta hadda 10 sano ayaan ku soo jirnaa ama wax ka badanba inta wacyigelinta wadno anagoo sheegin dhibaatooyinka gudniinka uu leeyahay gabadha muslimadda ama gabadha Soomaaliyeed, sidii bulshadeena raadkin ugu reebay ama dhibaato badan ugu geysanaya. ana qofka haduu dhaawacan yahay wax uu sameyn karo male, gudniinkan sidaan la socono dadka gabadha ayuu dhaawacaa. wax badan aan sameynay, hooyooyin badan ayaan la kulnay, wacyigelin badan ayaan sameynay, waxyaalo badan aan ka qornay. waliba waxaa dhacday maadaama markayna arkeen waddankan Holland daraan gabdho badan oo hadda arkaysa kamid yihiin saaranaaleey aniga kuwa kale nala siiyay wax abaalmarin la yiraahdo shahaado sharaf weyn oo ku siiyay shaqada aan qabanay. waxyaalaha ugu weyn aan sameynay waxa waaye waxaan sheegnaa gudniinka sida uu gabadha maskaxdeeda u taabto, yacni nafsiyadu ka taabtaa, jirka kaliya ma aha. jirka bini'aadanka hadduu dhaawac soo gaaro waad la qabsan kartaa ama waa u sabri kartaa, laakiin maskaxda hadduu dhaawac soo gaaro weligaa waa adagtaasaa uga soo kabatid. gudniinkana sida aan la socono wuxuu taabtaa maskaxda gabadha ama nafsada dibad u dilaa. marka waxyaalo badan aan gabadha aan u sheegnaa sidii ay dhibaatadeeda u sheegan lahayd, sidii ay uga horbixi lahayd, sidii ay gabadheeda ay dhashay hadday gabar leedahay ama ay dhali doonto ay u gudin lahayn ama
uga xafidi lahayd dib ka soo gaar doon marka waxyaalo badan aan sameynay wax horumar badan aan ku talaabsanay runtii gudniinkan wuxuu noqday waxyaalaha ugu weyn ee lagu hadlo wadanka waa ka qornaa aniga hadda dhowr buugaan qoray gabdho badan oo Soomaali buugag badan ay qoreen waxaan sameynay wax la yiraahdo foorliqtin wax u sheegis gabdhahan meel suuq keena training aan siinaa waxbaan u sheegnaa sida gudniinku wuxuu yahay sidoo dhibaato u geystay si diinta uu shaqo ugu lahayn waxyaalahaas wax badan ayaan sameynaa waxaan kaloo aan sameynaa wax la yiraahdo baainku mustawa isku imaanaa gabdhahan waceynaa anagoo ama soo booqanayna ama meel ku balaminayna isugu imaanayna waa ka wada munaashaqoynaa ka wada hadlaynaa dhibaatooyinku geystay si looga hortagi karaa maxaa la sameyn karaa boogtii ku xanuunaysa ama dhibkii gabadha soo gaartay sidee نعم لو داي كرا أم لو داوين كرا وكتر جرنا إن شاء الله مستقبلك وحيالها سكر إن سمينا أو ودكينا تقنو أو قبلها أو وعي قلنا قبلها وحا وشيغنو وحيالها وين أن سمينا وحواي ميديا إنترنت أنا ومقالوين بدن كسو قرينا أنا وكهذين مركز دباتد وجيسنا قبل الصومالي جدنينك مركز يعني جد كستا أمر كرنا وأمرنا رنتي تبر بدن أياسينا أنا وحيالها سن وقبلنا وحلي يراد فرنتري أما وح العق أنا كرادين أما أنا وح كلا قيمة كلا أنا كرادين كلية تواج مسارن إن gabadha Soomaaliyeed ugu digno dhibka uu leeyahay gudniinka iyo sidii looga hortagi lahaa iyo sidii carruurteena soo socdo mustaqbalka aan u dhaawici doonin inshaalla ahayla ana Soomaaliya maanta waa ugu la soconaa dhibaatada ka taagan koow waxa ka dadka Soomaaliyeed waxay u maleeyaan inuu qabiilka koow ka yahay burbur ku dhac wadanka Soomaaliyeed qabiilka kuma aha burburka wadanka Soomaaliyeed ku dhacay waxa waaye dhaawac soo gaaray gabadhii laana hooyada ayaa nolol dhiibi karta hooyada ayaa ilmeheeda nolol siin karta hadii hooyada ay kala jabanta ama dhaawacan tahay waxay nolol siin karta male carruurta barbaarinteedu way ku adag tahay ilmihiira ma barbaarin karto iyada dhaawaca ilmihiina saas oo dhaawacaysa marka aniga waxaan aaminsanahay oo sidii aan ka arkaysay maanta shirkii aan qabanayno oo kaaga muuqatay dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya waxa uu gabadhii oo gudin laana bulshada laf dhabarka waa haweenka haday dhaawacan yihiin wadanka dhan dhaawacan haweenka oo xaqooda iyo xuquuqdooda la siin haweenka oo la dhowrin haweenka oo la baraarujin haweenka oo waxbarasho lagu dhiirigelin wadankeena ma hagaagayo laana ma soo saari karno wiilal ma soo saari karno wiilal loo baahan yahay wadanka inay qabtaan annaga waxaan nahay maskaxdii wiilasha waxaan gadaal kaga jirnaa laf dhabarkayaan nahay annaga soo saari karno wiilal fiican si ay wadankii ugu gargaaraan ma soo saari karno wiil sababtoo ah anaga dhaawacan waxaan soo saarayna waa wiilal dhaawaca wadankii waa arkaysa burbur ku yimid qof kasta wuxuu leeyahay qabiilka u sababa qabiilka ma u sababa gudniinka aan joojino taasna aan fahanno gabagabadii xafladan ayaa waxaa hees qiiro gelisay Soomaalidii ka soo qayb gashay ka qaaday fanaan u dhashay wadanka Suudaan oo ku heesay hees af Soomaali ah taas oo sababtay in dhammaan Soomaalidii ka soo qayb gashay xafladda ay hal mar farxad iyo alalaasi isku daraan iyaga oo la yaaban fanaanka Suudaaniga ah oo ku heesaya afkii Soomaaliga Febraayo ee sanad walba ayaa waxa loo aqoonsaday in ay noqoto maalin caalami ah oo la xuso ka hortagga gudniinka gabdhaha noocii uu rabo ha ahaado kadib shirweyne caalami ah oo lagu qabtay sanadii 2003 magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyeen ay ururo ku howlan arimahani ay waxyaabo far badan oo wax ku ool ah ay ka qabteen wadamada uu markaasi ka jiro gudniinka gabdhaha Maxamed Abuukar Sheekh Xasan Maxamed Deeq Universal TV magaalada Utrecht ee wadanka Holland